بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waxaa la yiraahdaa Dr. Maxamed Xuseen Diiriye oo ah maamulaha caafimaadka isbitaalka degmada deegaanka Jariban. Waxaa sida horeba loo sheegay waxaan halka uga baxnay team ka kooban maamulka degmada iyo anagoo ah dhakhtarka degmada ahna maamulaha caafimaadka degmada Jariban. Ujeedadana waxay ahayd inaan deegaanka aan soo aragno soona indha xaaladda abaaraha iyo caafimaadka iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin. Waxaan ka baxnay 8 subaxnimo degmada Jariban waxaana u jahaysanay xagga iyo Labilamaane Dhawacantuug Koobadi ilaa Mayle ka bacdina waxaan ku soo khatinay Shakaal ilaa iyo Shacbaan iyo tuulooyin kale oo badan. halkaas waxaan ku aragnay dad aad u dhibaataysan. saddex waxyaalood ayay dadku ay ka cabanayeen. mid waxay ahayd xagga maaragtay biyo la'aanta, midna waxay ahayd xagga raashinka inay ayadana gabaabs ka joogo oo maadaama uu qaaliyoobay dollarkiina kacay waa dhibaato ka haysto say raashin ku heleen. waxyaalaha aan la yaabo waxaa ka mid ah baabuurkii aan wadanay nin wada darawal ayaa wuxuu watay gabdad bariisa markaasuu nin wuxuu yiri ilmihii baa iga baqteen iga gad gabdada meel kale aan ka hela ma lahayn. marka dadku laba arrimood bay ku mashquulsanaayeen siday gaadiid u soo ijaaran lahaayeen ayagoon awoodna u lahayn si xoolaha iyo ay ugu rartaan oo meel biyeela ugu dhawaadaan. waxaa kaloo jira ayadana gaajo iyo cudurradaas waxaa ka mid ah maadaama ay barkadihii qalaleen wax yarna salkooda jiraan ayagoo isbedelo cagaar noqday ayuu dadku cabaa. halkaas waxaa ka dhashay cudurro sida shubanka oo kale iyo dysenteriyada typhoidka iyo xanuuno kale oo ay u dheeryihiin kuwa respiratoryga oo infectionka ah. marka anigu waxaan qaaday daawo yar oon ka qaaday isbitaalka degmada. meel kastoo aan tagna waxaan sameynahay visito halkaasuu dadku saf soo galahayay. daawadii aan waday saan hadba meel ugu qaybinhayo markii dambe waxay ku dhamaatay Shacbaan oo tuuladii u dambeysay ah. yani intaas daawo qaybin nasiib daro marka safarka intaan ku jirnay waxaan galnay shil ambalaastii aan watay waxay gashay shil aadna way u burburtay. hooska ayaa u baxay lugtuna goor habeenimo anagoo guuraynayna lugtuna way ka baxday. khatar ilaahay naga baxshay ayaan meesha ku galnay. waxaa ku jirtay baabuurka anigoo ah dhakhtarkii degmada iyo yar neersa iyo darawalkii waday. nasiib wanaag halkiibuu ku damiyey annagana waxbana laakiin baabuurku aad ayuu u burburay. kabacdina waa la soo jeedaa hadda wuxuu yaalaa degmada Jariban. waxay arintaa u baahan tahay maadaama hay'adii hore u soo sameysay aysan ay dhawaan waa ka baxaysaa la leeyahay. waxay arintaas hoos taallaa maamulka caafimaadka iyo caafimaadka dowladda Puntland. anigana halkaas iyo dadka halkaas gaarigiina ka halaysan yahay dhibaatooyinka. marka saan horeba u sheegay dadka dhibaato aad iyo aad ay u dhibaataysan geedaha hoostooda ugu tagay daawo ku siinayay. qaar badanna waa ka soo tago baadiyaha jira ayagoo qaylinhayo hanaga tagin leh. waqtigu markaan tagna Mayle xanuunada ay ka cabanayeen dadka waxa u badan sida horeba u sheegay xanuunada shubanka, qandhada, biyo la'aanta iyo cunto la'aanta oo ay ku fakarahayeen meesha kaliya oo ugu dhow ceel inay u qaxaan ayay maartay qorsho ahaadan. dad badan oo guryaha daadsan ayaan ugu tagay oo daawooyin ku sii xaaladooda waxay noqon doontaa ma aqaan. anigu waxaan ku taliyay isbitaalka Jariban ha loo dhigo laakiin ma filaayo gaadiidna may haysan awoodna uma lahayn ambalaastii aan u soo diri lahaana wataa jaban. sidaa darteed waxaan codsanaynaa dowladda Puntland in arintaas abaaraha ka jirta deegaankan inay sida awal loo sameyn jiray madaxweynaha wasaaradda caafimaadka Puntland oo dhan in gurmad la galo oo deegaankan degdeg loo soo gaaro. waayo
roobkii dacay meelaha qaarkood cagaar iyo kusan laakiin laba xilli oo roob dacay deegaankaanu wax muxuu ahaa ma helin marka hadda waxaa bilaabanaysa nafaqa daradii xoolihii oo daadanhaya aad bay dhibaato uga jirtaa waa degdeg inaad noo soo gaartaan ayaan u baahanahay anigoo ah dhakhtarkii caafimaadka soona arkay deegaankaas deegaanka hoose oo xagga xeebta jiran aanan weli tegin ambalaas inaga jirin gaadiid iyo wax kastoo nala ku caawin karo nala soo gaaro muxuu ahaa dowladda Puntland wasaaradda caafimaadka wasaaradda arrimaha gudaha muxuu ahaa dowladda federaalka dhammaan in la soo gaaraan rabaa dadkaas waa dhibaataysan yahay dad Soomaali way caawimaad bay u baahan yihiin muxuu ahaa aniguna wixii aan ku hayay muxuu ahaa isbitaalka Jariban iyo MCH ka Jariban ayaan shalay soo qaaday wixii kalena waa gabaabsi hanala soo gaarana waan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh muxuu ahaa sidaan horeba u sheegay tuulooyinka haddaan kala qaado way kala darnaayeen tuulada muxuu ahaa Labilamaane ayadu waxay ka cabanayeen biyo la'aanta iyo muxuu ahaa nafaqa darrada iyo muxuu ahaa cudurradaas way ka dhammaayeen laakiin tuulada ugu daran oo dadkeena daasa aniguna aan markaan falabayaal wax ku taagay aan hal qaado aysan qaadi karin waxay ka cabanayeen meel waxaa noogu dhow meesha la yiraahdo godob jiraan ilaa meesha la yiraahdo Jariban marka xoolaha waxaa loo qaxinaya meel ceel u dhow wixii jidka ku harana kuwa badan jidkay wada fariisteen aad iyo aad baa ka muuqatay marka xanuunada ka jira oo u kala darnay waxa nafaqa darro waxay ka jirtaa meesha la yiraahdo Labilamaane meesha la yiraahdo muxuu Dhoobantuug oo aad u baasan aad go'doon u ah waxa ka jiray xanuunada respiratory iyo dysentery dad u yaalana aniga ku siiyay guryahooda qaar baadiyahana waa laga cabanayay xagga muxuu ahaa mayle ayada waxa u darnayd dadku waa badna dad badan baa joogay meelahan kale waa laga kala qaxay dadku waa ku yaraan sida Shakaal iyo muxuu ahaa Shacbaan iyo dadkii waa kala guryuhu way iska wada xiran yihiin xoolahoodii bay la tageen dadkuna biyo meel ugu dhow bay raadinayaan marka eelal in dadka loo qodo in loo soo gurmado ayaan ku talinayaa meelaha ugu daran oo aad ugu daran waxa weeye Dhoobantuug iyo muxuu meesha Shakaal yaa ugu darnaa meesha la Shacbaan sidoo kale guryuhu dhamaantood way xirnaan saddex qoys kaliya dadka joogay dadkii oo dhan waa qaxeen carradii abaar baa ka jirta hadna la soo gaaraan leeyahay aad iyo aad bay dhibaatada uga jirtaa deegaanka